بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك شرفت له كلنتي وناكسن وعن مeel kasta adduunka ka joogtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiina iyo dambiga waalidkiina dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadada idinka aqbalo walaalayaal waxaan ku guda jirnaa maalmihii aad ku barakaysnaa inkastoo aan jeclaa inaan ka fogaado arrimaha siyaasadda haddana waxa aad ii soo jiitay go'aankii ka yeeray dawladda Soomaaliya ka soo yeeray dawladda Soomaaliya ay ku mamnuucday qaadka ama jaadka walaalayaal go'aankaas qof kasta oo Soomaaliya uu ka farxiyay dad badan oo igu horeeyeen oo ka hadleen ma sarrabo inaan uga hadlo sidii dadkii hore uga hadleen waxaan sarrabaa inaan arrintan aad iyo aad marka koowaad ugu bogaadiyo dawladda Soomaaliya marka labaad waxaan rabaa inaan arrintan su'aal ka keeno walaalayaal go'aankan ay dawladda Soomaaliya gaartay ma go'aan siyaasadeed ba mise waa go'aan dhab ah oo ka yimaaday dawladda Soomaaliya waxaaba durba soo shacbaxaya in arrintaas uu yahay go'aan siyaasadeed walaalayaal qaadka haddaan u soo laabto horta marka koowaad waa daroogo waa kan ugu xun weeye wadamada reer galbeedka ee gaalada ee aan muslimka ahayn dhammaantood waxay isku raaceen qaadka ama jaadka inuu ka mid yahay qayb daroogada ka mid isla markaana wadamadooda way ka mamnuuceen waadna maqlaysin ayaan dhaweyd ninkii Soomaaliga ee lagu qabtay dalkaas New Zealand lagu qabtay oo xabsi daa'imka loo taxaabay haddaba khatarta noocaas oo kala gaaladii xataa haday garteen oo khamrida iyo daroogooyinka kale isticmaali jiray inuu waxaan darooga yahay dad muslimiina maxaad u malaynaysaa marka halka waxa ka cadaatay xukun ahaan inuu qaadku yahay xaraan inuu yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xarimay quraanka maxaa yeelay ilaahay wax kasta oo dib noo keenaya oo xunna uu naga xarimay wa yuharrimu alaykumul khaba'ith ilaahay wax walba oo xun oo dhibaato dadka u keensan kara ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xarimay marka qofka ku yiraahdo quraanka jaadka ma xarimin waa beentiis weey maxaa yeelay jaadka waa waxun waana daroogo inta haddaan uga soo laabto qaadka walaalayaal wuxuu nooga yimaadaa laba wadan oo Soomaaliya cadow kana faa'iideystay burburka Soomaaliya waxaad ogtiin jaadka mirooga wuxuu ka yimaadaa Kenya kan Harare maxaa la yiraahdaa jaadkan Harare jaadka dheer adiga ala kulli xal oo ka yimaada Ethiopia labadaba waxay ka yimaadaan laba wadan oo Soomaaliya fayla gooyay isla markaana raba inay burburka Soomaaliya uga faa'iideystaan walaalayaal dawladda Soomaaliya waxaanu ku dhaliilaynaa inkastoo ku amaanay go'aankii hore haddana waxaan ku dhaliilaynaa go'aankan haday ka dhigan go'aan siyaasad ku xiran oo muxuu ninka gudoomiyaha gobolka Miro Malda Kenya u tagay Hargeysa ama Somaliland oo heshiis oo la saxiixday saas darteed ayaan uga mamnuucayna sidoo kale wadamada gobolada Soomaaliya kamid oo sahlay in wadanka Soomaaliya jaad soo galana ayakan waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada Somaliland iyo Soomaaliya iyo Puntland iyo Galmudug walaalayaal dadka Soomaalida waa dad Soomaali waa dad muslimiin meeshii rabaan ba ku noolaadaan dhibaatada jaadkana way ka wada siman yihiin haddaba maamul kasta ama dawlad kasta waxaan ugu baaqayaa inay go'aan shariif ka qaadato maba jaadkii waa noola keenaa laba wadan oo cadawgeena ayaa noo keena waxaana laga qaataa lacag dhan baa la yiri 500 oo kun oo dollar ayaa yawmiyan laga qaataa Soomaaliya oo cash dollar ayaa laga qaataa qashin iyo cawsna oo noola keena marka hadii aan dhahnaba qaadkii iyo jaadkii iyo qurunka noola keenay maxaa noo diiday inaan xataa annaga qudaarteena iyo wixii wanaagsaneen aan haynay inay naga iibsadaan waxaad ogtiin Soomaaliya wax qudaar oo laga qaado oo wadamada dariska loo iibgeeyo haba yaraatay ma jiraan bal iska dhaaf Soomaalidu waa la dhibaa xiriyaha qaxootiga lagu dhibaa isliiba lagu ceyrsadaa meel kasta waa lagu dhibaa dhinaca kale Etoobiyana waa sidaas oo kale haddaba marka maxaan la rabaa shacab ahaan go'aanka wuxuu ka imaan karaa shacabka waa in shacabkeena aan dareensiina dhibaatada qaadka nagu hayo dhibaatada labadan wadan ee Soomaaliya ka faa'iideysanaya dhaawaca gaaray burburkeeda ayaa walaalayaal rabaa in la ogaado waxa kale oo loo baahan yahay Soomaaliya walaalayaal waxa lagu xisaabtamaya khayraadkaada ayaa lagu xisaabtamaya sida ayaan dooda daawanaysan barnaamijka la soo daayay dalsoor laga soo daayay Kenya waxay deyn ku qaadataa ama adduunka uga macaashtaa waxa Soomaaliya ka soo bixi doona marka khayraadkii Soomaaliya ayaa hadda loo tashanaya oo deymo lagu qaadanaya oo shirkado kale oo adduunka ka tirsan loo saxiixaya marka walaalayaal waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya madaxda Soomaaliyeed waxaan inaga codsanaynaa go'aanka aad qaadateen inuu noqdo go'aan ku dhisan shacabka u danayn laakiin haddaan noqotin in asaga danaysanaya oo jeebkiisa ka fakiraya oo siyaasadda maanta quutulmoodka wuxuu diyaaraddu raacila ka fakirayo waxaan ku leenahay siyaasi noomatid namana matashid Soomaaliya waxay u baahan tahay qof badbaadiyo dhibaatada ka saara Soomaaliya waxay u baahan tahay qof ogaada in dagaal culus lagu la jiro
in faylaha la haysto in la dhabar jabinayo waxyaalaha ugu weyn ee 25 sano 30 sano dhabar jabiyeen walaalayaal waxa kamid ah jaadka ayaa kamid ah yaa noo adeegsanaya cadawga Soomaaliya noo adeegsanaya adiga sawiro $500,000 inta maanta laga qaato ay ciidamadooda ku soo hubeeyaan hub ku iibsadaan ay ka guriga ka dhistaan hormaraan adigana hadhowti lagu burburiyo aqliga noocaas xaq ka keeni kara aniga marka waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka Soomaaliyeed dadka qaadka cuna walaalayaal waxa la gaaray xilligii aad baraarugi lahaydeen xilligii aad tufi lahaydeen xilligii aad reerihiina u soo laaban lahaydeen xilligii aad rabbigiin ku xirnaan lahaydeen sidoo kale waxaan aad iyo aad u leeyahay walaalayaal nimanka Soomaaliya horbooda ee siyaasadda noo matala ilaahay ka cabsada ilaahay subxaanahu wa ta'aala shacabkan wayna weydiin doonaa ama Somaliland xukun ama Puntland xukun ama Galmudug xukun ama Koonfur Soomaaliya xukun ama inta hadda laan aan suubisanaba xukune meel kasta oo Soomaaliya kamid ah waxa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed maslaxadiisa inay ilaaliso walaalayaal Kenyaatiga iyo Etoobiyaanka waxaynu arkaa inaan Soomaalinahay waxaadna ogtihiin hadda ka hor in la sheegay jabhadii Soomaaliya ku baxay intay ciidamada Soomaaliya soo weerareen oo ay Soomaali dileen ayaa wuxuu yimaadeen axmaarkii markaas waxay maanta ciidamada Soomaaliya ayaan soo dilnay idinkana meeqaana laga dilay annagana intaasana laga dilay isku dardar buu yiri kulliyo Soomaaliya Soomaali waxa la dilay ninka Etoobiyaanka nin aqli miran ayuu ahaa wuxuuna sheegay Soomaalida in ay ka islaayeen haddaba sidee naftan ugu ogolaan karnaa in cadawgeena annaga gacanteena ku rabbeeyno carabtu waxay yiraahdaan eygaada kori ha ku cunee eygaada cayili ha ku cunee annaga Kenya Ethiopia cayilinay maalin kasta $500,000 are you crazy man bedaan waqti ya igara la hada inaan ma aragtay runtii erayada noocaas oo kala isticmaalo waxaan ka wadaa walaalayaal aqligeena meeyay dadnimadeena meeday haddaba waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed meel kasta jooga magaca rabtaan wata calanka magaca rabtaan wata calanka rabtaan sita shacabka Soomaaliyeed waa shacabka Soomaaliyeed kan Hargeysa ku nool iyo kan Kenya ku nool iyo kan Ethiopia ku nool iyo kan Muqdisho ku nool intaba waa Soomaali way dantooda ka fikira hana ogaadana in shacabka Soomaaliyeed ay dhowda xilliga uu baraarugi lahaa una ka bixi lahaa dhibaatadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkeena dadkeena noo hagaajiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh